mararka qaarkood dad badan ay yiraahdaan wixii aan soo sameynay waan la ka goynaa runtii because dhibaatada aan marayno ujeeda anagoo maalin dhaweeto markaan saaranay groupkan kakuma ka yimid qaar waxay yiraahdaan waxaan ka nimid jubbooyinka markaas ay bal ka warramo jubbooyinka waa meesha mooskii cambihii iyo lintii iyo khudaartii wax walba ka baxaysay haddaad xiriiq qaxooti ka joogtiin soo cuqabo maaha taas maxaa yeelay annaga is aamini weyne dhulkaas oo barwaaqada in qaxooti laga noqdo khalad bawaamo idinka ahaan dadkiina xeryaha degan inaad noqotiin waa dadka u helin lahaa dastuurka maxaa yeelay marka aad fiirisiin meesha aad joogtiin sababta u joogtiin waxa waaye maxaa yeelay dastuur aad isaga dhicisaan dhibaatada idin soo gaaraysay ma jirin xuquuqdiina lagu tuntay guryihiina idinka soo barakiciyey qaxooti baa noqoteen haddii laakiin aan dastuur qabi lahayn oo waddankeena aan joogi lahayn oo maxkamad sare oo awoodla ay joogto maalintii dowladda ay kugu amartaakayso loo yaraa qabsan lahayd maxkamadda tegi lahayd sida hadda Kenya ka dhacday Kenya hadda arkaysan democracy ka dhacay constitution ay samaysteen waxay gaareen dowladdii oo rabto inay soo dhaweyso Umar al-Bashir oo ah madaxweynihii Sudan oo ayaga wax weyn ka dhaxeeyaan ayaa maxkamaddii tiri ma jirto maxaa yeelay ninkan waxaa soo indhaad gareeyay maxkamadda caalamiga ah marka taasaan raacayna yani ujeedaan ku keena waxa waaye maxkamad dastuuri ah ayaa ka dhisan meesha oo ah haddii maanta Kenya uu madaxweynaheeda inta soo baxo oo inta ku yimaado yiraahdo ninkan property-giisa waa la wareegaynaa maxkamaddu waa diidaysa hadda waxay ka dhacday isli meel laga jibin lahaa oo la yiri security-ga waxun tahay maxkamad baa la tagay injection baa la saaray hada ma soconayso dawladda xoog ma yeelan karto dawladda marka inaa idinku u hilisaan waaye example-kii dhibaatadaas idinka aka ah